Dalkeena Soomaaliya waxaa ku yaala goobo fara badan oo taariikhi ah gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe magaalo madaxdiisa magaalada Jowhar ahna caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa ku yaala goobo fara badan oo taariikhi ah hase ahaatee waxaan si gaar ah u xusayaa Xiintooyda oo ah gidaar shub ah oo gumaysiga Talyaaniga webiga Shabeelle qaybaha uu ka maro magaalada Jowhar oo dhex dhigay si uu ugu meeqaamiyo ama uu hakiyo biyaha webiga Shabeelle si uu waraabiyo beerihii qasabka warshadii sokorta soo saari jirtay Isnaay xilliga webiga Shabeelle oo buux dhaafo haba yaraatee lama arko halka webiga biyihiisu markii ay hoos u dhacaan la arki karo xilligaani waxaa lagu guda jiraa xilliga webiga Shabeelle biyihiisu ay hoos u dhaceen waxaana dad fara badan halkaasi yimaada oo siyaabo kala duwan u yimaada Xiintooyda qaar ka mid ah biyaha ka dul daadanaya Xiintooyda ay ku dabaashaan qaar kale maadaama webiga biyihiisu ay yaraadeen kubad ay ku ciyaaraan halka qaar kalena sawir ay ku galaan iyadoo qaar kalena maadaama si weyn sheekadooda dhagahooda uga badatay yimaadaan in ay arkaan qaar ka mid ah dadkaasi ayaan warbaahinta qaranka kula kulantay Xiintooyda magaalada Jowhar waxayna uga warameen waayaha annaga Xiintooyda aanan joognaa gobolada kalena ma qabaan annaga nin walba meeshaan dana u yimaada nin badantiisa u yimaada ciyaalkana banooniley waa dad banooniley qabayskiga soo aada dad kale macnaha oo rayada iska reer baadiye macnaha qabayskiga imaanayeen annaga meeshaan hadeen imaana malaan soo jirsanaa qof walba malaaw macnaha qof malaaw meesha u imaana qof qabays oo imaana banooniley waa timaada banoonigaas iska dheeshay meesha iska ciyaara iska qabaystan ayagana ciyaalka iyo dhalinyarada saasa macnaha qof walba meeshaan u yimaada gobolada kalena ma qabaan waa kan intaanoo dad ma iska tuuran macnaha Xiintooyda leewa qof walbana macnaha oo meeshaan imaana Xiintooyda macnaha sideedaba xilliga jiilaalku biyo la'aanta soo baxdaa marka kale lama arko marka waxa waa saasa meeshaan isku imaana waatan nin walba afiiriyo intaanoo dad oo meeshaan joogto makhluuq oo banooniley oo ilma yar leh anagana hadda malaayliyan oo mootadaas meesha ay taal malaayna ka qarabtaan meesha nooga yimid marka webiga saano faaruq siiga yahay ilaa ay Xiintooydaas quraxdaas iyo macnaha nidaamkan tuulo kale oo qabta malaha ilaa gobolka Jowhar ma ahayna wanaagaas ma sha Allah magacaygu anigoo ah Biinbuude waxaan joogaa maanta magaalada Jowhar gaar ahaan hubigii waxaan ku qabaysanaynaa maanta waxaan jecelnahay inaan ku damaashaadno ku banooni ku dheelno ku qabaysano markaste aan joogno meeshaan maalin kasta waa soo aadnaa wax dhibaato kuma aragno waa ku faraxsanahay inaan qabaysano maanta waxay noo tahay Xiintooydayna waxay noo tahay sidii badda liidoo kale maadaama aan leedahay haysanin Xiintooyda haysana ku qabaysano waa ku faanaa marka magaalooyin kale waxa jiro haysanin Xiintooydan oo kale marka anaga waa iskaga qanacsanahay leeda bedelkeeda ayada haysana Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cabdishakuur Cabdiqaadir oo jooga Jowhar oo maanta aan joogno Xiintooyda waxaan aaminsanahay saan u nahay Jowhar inay ka fiican tahay liido inay ka fiican tahay Xiintooyda ayaan aaminsanahay saan u nahay Jowhar marxiim halkan waxaan salaamay dhalinta Jowhar oo halkan ku soo dalay halkan waxa la Jowhar waxayna ku taala xaafadda Horseed waa magaceedu waa Xiintooyda halkan runtii waxayna ka fiican tahay badda liido bedelkeeda waxa haysanaa Xiintooyda maanta hada Xiintooydan haysaleen maanta waxa aad leeyahay Muqdisho bedelkeeda waxayna joogtaa meeshaan liido Jowhar waaye sanadkii walba waa lu dal xiistaa sanadkii waxay noqotaa meeshaan orxeedkii marka runtii sanadkii halka mar ay noqoto runtii meeshaan ku soo damaashaadnaa maanta aadana u faraxsanahay waxaana ahay dhalinyarada Jowhar ee ku dhashay meeshaan ayna ku soo barbaaray waana mahadsantihiin shacabka nool magaalada Jowhar ayaa inta badan waxay ku faanaan Xiintooyda magaalada Jowhar iyo goobo kale waxaana jira heesa laga alifay Xiintooyda